aan ku hormaro magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maanta ay ku shireen oqaasha beelaha iyo waxgarad deegaanka Soomaalida iyo saraakiil militariga federaalka oo qaarkood ay ka soo duuleen magaalada Addis Ababa saraakiishaasi kuwa la yaqaan waxa kamid ahaa General Hassan Ibrahim oo ah madaxa sirdoonka iyo difaaca ee wasaaradda gaashaandhigga federaalka iyo taliyaha militariga ee bariga Itoobiya General Balay Asyum oo iyaguna dhinaca kale istiraatiijiyada deegaanka Soomaalida haddaba wixii labada dhinac ay ka wada hadleen ayaa BBC-da waxa uga warramay mid ka mid ah salaadiintii kulanka fadhiyay waa Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo intii shirku aanu dhammaan ujeedada wixii ay ka wada hadleen iyo wixii la isri uga warramay wariyaha BBC-da Faarax Lamaane marka shirka Jigjiga lagu qabanayo waa shir nabadgelyo ciidamadii qaranka iyo xukuumadii iyo hay'adihii nabadgelyada oo dhan baa dadweynaha reer Jigjiga shir iskugu yeeray shirkaas oo ah wixii dhacay sidii loo xalin lahaa wixii ka dambeeyay sidii looga hadli lahaa ayay dadweynaha reer Jigjiga iyo dadweynayaasha deegaanka ay ka hadlayaan maxaa u sheegteen markii ay idin wareysteen dadku waa kala fikirsan yahay dad waxay leeyihiin dawladda ka dambeeyay dad waxay leeyihiin dad hubaysan oo la diyaariyay oo heegan la yiraahdaa ka dambeeyay ninba fikirkiisa ayuu soo jeedinayaa waa gartay adiga maadaama aad tahay odayaashii dhaqanka waliba kuwoodii hormuudka ahaa rabshadaha intii ay dhacayeen iyo wixii la soo maray xoogagaal aad u tahay sidee loo xalin karaa ayaad isleedahay dhibaatada marka waa horeysa horta dadkii dhibaatadu gaadhay baan taxsi u diraynaa annagoo odayaasha deegaanka ah waxaana wax dhaqan Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka raad kule maaha in goobo macbado oo dad caabudaan aan la gubo waxaan u malaynayaa wax dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka raad kule male laakiin wax dhacay oo dad Soomaaliyeed sameeyeen dad guruuda oo hubaysan oo diyaarsan ay sameeyeen weeye marka hore dadka walaalaha ay Itoobiyaanka nala noolaa in waxaas ay ku dhacdo waan ka xunnahay waxaan aad u cambaaraynaa cidii waxa ka dambaysa in maxkamad iyo sharciga la hor keeno dadweynuhu inuu istajiyo wax ciidan oo lagu soo duulay ma jiro waxa maanta jooga waxa way ciidamadii qalabka wadanku wada lahaa qoomiyadka Itoobiya wada lahaa oo nabadgelyada sugaya ciidamadii amniga ee deegaankuna way la shaqeynayaan marka waxa la sheegay propaganda waa la isku dhacayaa deegaanka waxa la qabsaday ma jirto dawladda iyo nabadgelyada sideedii u dhisan tahay annaguna waxaan diyaar u nahay maamulkeygii la shaqeyn dimuqraadiyadda Itoobiya ka qaatay iyo xorriyadda ka qaatay inay deegaanka shacabkiisa ka qayb galaan diyaar u nahay ciidamada iyo booliska ciidamada qalabka sida hadda way wada shaqeynayaan waa wiilasheeda waa ciidan dawladeed ciidan shakhsi maaha marka in la istajiyo oo dadka ay ku jirto cabsida ay istajiyan baan soo ayaan soo jeedinaya waa gartay Garaad Kulmiye dadka laakiin qaarkood waxbay tirsanayaan gaar ahaan waliba qoomiyadda Soomaalida marka ayaga qudhooda sidee isleedahay waa looga garbixi karaa ciidamada ciidamadii dawladda federaalka ciidamada ninka ka wax dhib oo ay sameeyaan haddana ma jirto nabadgelyadu bay sugayaan ilaa haddana wax dhibaato ay sameeyaan ma jirto wadanka dastuur iyo sharci baa ka jira wuxuu xaq u leeyahay ciidamada federaalka meesha dhibaato ka jirto inay ka qayb qaataan wax kala qabasho oo jirta ma jirto nabadgelyada in la sugo dimuqraadiyadda Itoobiya ka dhalatay in la qaado umba dadweynaha iyo shacabka raba dadkii Soomaalida ku dhex noolaa dhibaatada markii ay dhacday cabsidu ay gashay waxaa la leeyahay qaarkood iminka ama badinkoodba waa ay cararayaan oo alaabtoodii waa ay la baxayaan iyo reerahoodii waan u tagnay kiniisadda waan tagnay wixii raashin ay geynayna waan u geynay wixii taxsiin u wadayna waan u geynay taxsiin baan ayaan u sheegaynaa inay isdejiyaan waxa ku dhacay waa wax anaga nagu dhacay ayaan u sheegnay iyaguna way qaateen dhalinyaro cabsanayso macallimiinta jaamacadaha ka ahayd iyo dhalinyaradii shaqaalaha ee dhismaha magaalada Tifaysi way waxa ka xaya iyaguna waxaan isleenahay haddii nabadgelyada soo noqotay inay soo noqon doonaan Garaad Maxamed Garaad Dool oo shirkii Jigjiga maanta ku dhex maray madaxda dhaqanka iyo saraakiisha militariga Itoobiya uga warramayay wariyaha Faarax Lamaane